بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن شاء الله تعالى ودرس جيني شناد يصدي ولا دقمي الهيد جعلك سيدا محن كل هذا عام كا كولا التوفيق على هنا ما فوجي سيدي هراء درس وقع النبي وحوي وحنيش يا جماعة ورئيس تعريفته محن كل هذا جعلك وحي يوحن إذن الشيء هذا إن إلهي مركز afar siyaabood inuu soo maro oo qofku ku dhaco indhaha iyo dhagaha iyo maxaan ku dhaco israacsan qofku inuu wax arko ama inuu wax maqlo magaca loo amaanayo qofkaasi ama qofkaas oo xiriir uu leeyahay oo wax xiriir uu jiro wax qofka bani aadamku uu jeclaan karo waxa uu kaliya waxa weey hadii ay dani ay dhaxdooda jirto marka alxamdulillah waan ka soo wareegnay waxaan haddana aaday sida u dhacay waan idin sheegay afartii qaybood waxaan haddana u qaybiyay maxaan ku dhahdaa jacaylka laba midkii hargabka ahaa iyo midkii dhabta ahaa kadibna markuu waxaan qaadanay haddana maxaan ku dhahdaa markuu u dhacayo sidoo u dhacayo allahumma salli ala sayyidina muhammad waxaan iri bay hayd ugu dambeystii waa laba scenario si gabadh maxaan ku dhahdaa ku dhacay laakiin kan kale maxaan ku dhahdaa hargabka iyo wiilku ku dhacay waan iga soo qaaday qofka beddelan waxa ugu muhiimsan oo maxaan ku dhahdaa meelaha كل بمال بالغ وضع كل ما إلا قفكو كمريون يوريو أو من مصدر داعي سو جعل ما قبل إيه وحوي وين كلن إيمال لغو كل ما أما مال لسكو أركي أما مال لسكو يمين حتى نو هنقطة الجامعة ده أما هنقطة محن كل سكولك أما هنقطة مدرسة أما هنقطة مساجد أما هنقطة مال أروس لسكو يمين لبارك المدود بعد سدها صدي أما أركتي دي كدب محن كل هذاي أن محن كل مركي لس أركي كدب ayaa laba kalmadood baa la islaafsaday labada kalmadoodna waxa weey saan ii sheegay hadalka iyo wajiga oo ka muuqdo waa darajadii waa qaybtii waa maqaamkii ama marxaladii afraad oo qaadanay mesela hadii la yiraahdo waa ila hadlay ama waa ila hadashay ama way aragtay oo waa idoo la caday isku waa darajadii saddexaad waa darajadii afraad weey markuu arko aqliga geliyo oo ku kala bayaamiyo oo ku ogaado kadibna qalbigu aaday qalbiga wixii ka dambeeyay waxa markaas imanaya waxa la yiraahdo body language taasina insha Allah ta'ala waan soo qaadanay marka alxamdulillah maanta insha Allah ta'ala labada siyaabo midda oo dhacay markuu dhacayo jacaylku qofka markuu ku dhacayo waxa la ogaaday oo diraasad lagu sameeyay oo baadhis lagu sameeyay qofka ninka ragga iyo qofta dumarka keebuu jacaylkan maxaan ku dhahdaa lamaanta u dhaxa waxa la ogaaday 100% inuu ragga si yaro degdeg ah ugu dhaco يا ويقول ريا دمر كنا وحوي كم دع مركز وحلقة قبل المرحلة اللي قاعدته أما حلقة يا إن محن كل هذاي إن يرى مدير سوق قاعدته أما حلقة يا بين كاشو كاللي تانك كدب والصور نقاجنا مركز لكن وحلو قاعدين إن كرجع هديه سطحي هاي قفت دمر كوا حوي هديه عمقي هاي هديه هاس جرو وقلبي قاعده كدبنا وفريسته كدب بقى مركي عرقته إني بعشو أي وكسي دواني سنة لأنه حوي ما حنقول حاجة عارف وزيز وعافيمات هدي وضدي صح على مرة لكن مربوع عذر سكوب بدل على كل حال مركا أنتوا نكون بدل نكون قبل مركا سهل ليس هذا ولا لو قف كاس وانجعله أما ويلكو حلي حتى هدو سطحي هاي سلا مركا بكون واقعي أو أبي لي أسكير وما كما شلون كل بقى وسأرنا يا إنه هذا anyway waxaan mudadaas soo qaadatay 8 27 casho wiilka iyo 8 maxaa 7 casho qofta dumarka limaada iyadu marta ugu dambaysaa muxuu galiyaa horta qofka jacaylku qofka haduu qabto muxuu galinayaa irtibaak confuse khalkhal laana mubasharatan markii qofkii arko ama qofkii maqlo hadalkiisa ayaa waxa imanaya in qofka bani aadanka naftiisa uu control karo ما بكنترولي كرما عدم السيطرة ما بكنترولي كرما أو حوي وحكم بحسها نفتي حتى واحد ربتي وذات كاد ربتي نقول قبل وذات دي ربتي نقطة دي إله قلبي قليو وحوي تصرفات كذا هي سبدلي لأنه قف الله قف كي مركو مقله قبل دي بمقله إسلام مركب وحكون دعايا خلق الكاسة وحوي يعني لبض السيناريو كسوق هذا كان خلق الجليني وهو الرئيس وحلو يقول قف بني هذا كهدو قف جعليه indhaha labada indhaha soo qabtaan labada ay isjeceliin mid ugu horeysa marka mid laakiin waa labada markay indhaha qabsanayeen ee indhaha la iska buuxsanay waa markuu qofka kale ka sii jeesto ayaana
baahida iyadoo ku jirto oo caaw oo dhan ilaahay uu leeyahay mar un aan arko qofkaas ay iyaduna leedahay mar un aan arko qofkaas ayaa mar alla markii isku hor yimaadaan waxay noqonaysaa inay yara adkaato inay toos isku arkaan kow waa marxaladii horreysay marxalada labaadna waxaa la sheegaa inuu yahay inuu maxaan ku idhahdaa yahay mar alla markii uu qalbka bani aadamka uu qalbigiisa uu jacayl galo wuxuu ku leeyahay takhallaa can anshitatika almuctaada muxuu leeyahay waxay leedahay you abandon all your activities waxaad ka tegaysaa wixii activities aan lahayd oo dhan مثلا waxa laga yaabaa inaad jaamacad aadi jirtay مثلا waxa laga yaabaa inaad meel maalin walba aad dugsi aad aadi jirtay quraan ka dhiganaysay مثلا waxa laga yaabaa in maxaan ku dhahday aad meel iska daweyn jirtay ama meel aad aadi jirtay ama shaqadaadii aad qabanaysay xataa uu khalqal galinay maadaama wuxuu u baahan yahay maxaa dhacday wuxuu u baahan yahay qofku wuxuu u baahan yahay inuu maxaan ku dhahday uu controlo fikirkiisiiba wuxuu noqonayaa in uu qofka bani aadamka qofku jeclaa ayaa wuxuu isbedelaya qofka schedule-kiisi waa dabaqada labaad darajada labaad oo qofka bani aadamka marba hadduu jacayl qabto schedule-kiisi baa bedelmay schedule-kiisi wuxuu ku adjust garaynaya ama ku toosinaya ama tacdiil ku sameynaya wuxuu ku sameynayaa qofku jeclaa jacaylkii baa soo galay isla markii wuxuu noqonayaa maalintii wixii ka dambeysay wuxuu noqonayaa qofkii laana wuxuu rabaa inuu qofkii la hadlo wuxuu rabaa inuu qofkii arko wuxuu rabaa inuu qofkii ku fikiro wuxuu rabaa inuu maxaan ku dhahday qofkii inuu maxaan ku dhahday mar un xataa hadduuna arkaynin isagu qof kale ka dareemo wuxuu jecel yahay xataa qof haddii uu arki jiray uu qof la noola xataa ku adkaato inuu maxaan ku dhahday toos uga wuxuu ku dadaalaya inuu qof kala xidhiidhiyo oo maalin walba u arko siduu qofkii maanta xaaladdu ku nool yahay xaaladdu ku jiro ama haddii ay isbartaanna waxay noqonaysaa from now so on waxay ka dambaysaa isla waqtigaas ilaa iyo inta uu jacaylku uu hayo waxay noqonaysaa qofka bani aadamku haddii uu xataa uu jecel yahay waa xalaqada maxaan ku dhahdaa waa qaybta shanaad xataa hadduu jecel yahay qofka bani aadamka mar alla markuu is hortaago qofku jeclaa waqtiga dhaafay ama saacadaha ku socotaan saacadahaasi waxa weeye waxay ku baasaysaa si degdeg to time flying right waxa dhacay inuu maxaan ku الوقت يسرع بلا تبالي بالوقت لأن قفكي بعد أركتي قفكي بعد مقشين وكاريم كمان اللي هذا أرنت الله بعد وقفك بني آدم كا تجعل كله واحد عايزتي وريسيج نهوي الله بعدنا وحوي إسكاجول كي وقفك بني آدم كا فلذلك سيدي بعد ولا معاملة ولا لو حنا نرجع لنا لهذه الهيئة هدوك هرجب كيام سهدوك وياها كي حقيقة هرت وارد مش وحكوا جت وابع عباده واحد قبنا يصيد أردن كني صح حقيقة جورك كذنبية والحانشة ماشي كجرت قف قال أدي ولا ده حتى هداك كفكرتي دوا عباده فكر كفكر يسحاس كذا الله يلي قفتي قرمان أكيد دونا وقرمان هيد دونا وعباده هذا الله اللي يصير كلمات لا في سنة يسين لأنه قفك محن كل ده يجعلك وهي وحسكو بدل حركات كيسي يسكنات كيسي صعود كيسي أكشن كيسي محن كل ده معاملات كيسي ولا وحسكو بدلا وحلي هذا وحل رومانتيك marka la sharxayo waxa lagu sharxaa qofku inuu qofku jecel yahay uu u sameeyo wax uu ku soo jiito maxaa dhacaysa marka waxay dhacaysa markaas inuu wax uu ku soo jiidanayo waxa dhacaysa inuu kelmad macaan ku yiraahdo mar alla markuu ama maxaan ku raadaayo qoftii la hadlay waxa noqonaysa inuu hadalkiisa inuu maxaan ku raadaayo arinka saddexaad inuu macaankii arinka saddexaad waxa meesha ku jira lagu leeyahay qofku hadduu qof jecel yahay arinka saddexaad ee ku soo kordhay waxa weeye الله يلي وح الله وحي قلد وقفك وجعل يهي وكأركو قلدوا معكم وح كفر جرينا قلبي جيسي أيام حوي ما بتص يا بحمان توقفك وليه جعل كبا وحوي وحقاضي وقريه ما دام ورد صدق معنا قبل هذا كله وعلى بليه قفك بني آدم كماشي وحكارك وماشي يا رمدو عدي بعد يا رمدو أيوك عركا بورتلن هدي دي بعد مدو وح يرقص قول تاكل كده بورتلن معركه فلذلك محد عليه وحد عليه إن جعلك أيام نقضي ماله قرينه مركا وح الله وحي وكأرك قف كاسي أما هذا أما ما كله أما يعني سيد عيال كبه النقطة سقجان بوحيالان وسقجان هذا دو أركي سيادة قف كلا أكو أركتد الله يروح السدوية هنا بسدوح الله لكن قف كجعش الماء أرين كفرادوي أرين كشناد وحوي قف كان معاه كله داي السجع الجعل وحد دائما كده ذاليا إن محينا سمايو
inuu wuxuu samaynayaa inuuna qaldamin muxuuna isku ilaalinaya inuuna qaldamin wuxuu isku ilaalinaya inuu qaldamin waxa weeye si uuna haddii uu qalad la yimaado ama hadal xun ama la yimaado ama xarakaad xun la yimaado qofkii u jeclaa inuu ka tago ayuu ka baqay falidalik ixtiyaad buu samaynaya mar walba uu is ilaalinaya qofku la hadlayo ayuu ku ilaalinayaa inuu maxaan ku dhahdaa dadaal falidalik tawfiiqda allah na waafajiye waxaan jeclaan lahaa limaada darajada waxa weeye qofka bani aadanka hadduu jacayl qabto jacaylkan weliba aan ahayn kan cibaadada ah ee cibaadada ilaahay jalla wacala uu ka dhigay xataa cuntadaad afka u gelinaysid sadaqa wey qofta dumarka ama ay odaygeeda aad afka u gelinaysid waa sadaqa yacni xarakaadka romansiyada oo dhan baa iska cibaada meesha dhinaca kale ay dembi tahay oo nabiga calayhi salatu wasallam markuu sheegay afka aad u gelaysid xaaskaaga waa sadaqa markuu yidhi asxaabtii way yaabeen waxay ma waxaad u gelinaysaa ama shahwada aad maxaan ku idhahdaa aad ku tuuraysid baa sadaqa markuu yidhi markaas yaa rasuul allah qof xaajadiisa gudanaya haddana sadaqa fa kayfa bikum buu yidhi maxay idin la tahay haddii xaaraan ugu tegi lahaa miyayna dembi alaysa calaysi wisrun miyayna dembi ahayn saas darteed falidalik tawfiiqda allah na waafajo waxaan u baahannahay walaal haddii ay tahay tan maxaan ku idhahdaa la joogjooga ah ee aan u bixiyey maxaan ku idhahda kan durayga ah walaalo waqtigaaga ayuu kaaga dhicin laanna waxa weeye marba haddii iskaajulka ay soo gasho qofta haddaad jeclaashid jaamacadaada haddii darajada u sarraysa haddaad qaadi jirtay shaqadaada haddaad number 1 ahaan jirtay numberka ugu hooseysa ayaad noqonaysaa laanna waxa weeye wuxuu qaadayaa fikirkaaga wuxuu qaadayaa hamigaaga wuxuu qaadayaa noloshaada oo dhan waxaa laga yaabaana inuu xataa bani aadanka waxaa lagu leeyahay qofka hadduu jacayl qabto waxaa dhacaysaa in ictiyaadaadkaasi fikirkiisa badan inuu hadhow toole ku rido walaan fikir badan iyo walwal badan baad ayaa ku dhacaysa jacaylka waxaa kamid ah lagu leeyahay qofka bani aadanka hadduu qofku jecel yahay mar walba wuxuu jecel yahay inuu qofkaasi dhibi ay ku dhicin qofkaasi walwal baa ka soo galay wuxuu rabaa inuu qofkaasi saliim noqdo xataa haddii la yidhahdo adigu meeshiisa maad gelaysaa dhib kugu dhacdo yes bule aniga dhib ay ku dhacdo laakiin qofkaasi ay ku dhicin wuxuu ku dadaalaya daa'iman falidalik haddaad jaamacad dhiganaysid haddaad dhakhtarnimo dhiganaysid haddaad waxaad rabta aad dhiganaysid walaalow waxaad iska ilaalisaa guurkaaga la sug ilaa aad maxaan ka guursanaysid la sug jacaylku waxa weeye laano darajadaada mustawaaga hoos u dhigaya habitaadkaaga al ishtihaa cuntadaad cunaysid way yaraanaysaa hurdadu way yaraanaysaa cudurrada uu leeyahay baa jirta maalin baan insha allah tacaala si gaar aan uga hadli doonaa waxaan jeclaan lahaa 5 arrimood mid ugu horeysa indhaha iskama arki karaan ta labaad waxay noqonaysaa schedule-ka oo dhan baa isbedelaya ta saddexaadna waxay noqonaysaa inuu qoftii uu arkay ama qoftii uu jeclaa in qalad walba ay la dhacdo inaan waxba ka soo qaadin ta afraad waxay dhacaysaa inuu isagu aad iyo aad isku ilaalinayo ta shanaad waxaa keenaysa arrimahan oo dhan waxaa keenaysaa fikirka badan iyo walwalka badan oo qofka bani aadankii marba haddii uu qof jeclaado fikirkiisoo dhan baa qaaday falidalik sideed walba waxa weeye waxaa wanaagsan aad la sugtid ilaa iyo aad maxaan ku dhahdaa laanno lahaanshada ugu muhiimsan laanno waxa weeye tan aanaad adigu lahayn ama kan aan adigu lahayn waxa waa laga yaabaa maalimaha kamid in laga hoos qaado laanno waxaad gacantaada kugu jiro ma waxaa gacantaada marka kugu jiro waxaad adigu lahaansha aad ku leedahay oo lagu yidhi qofkani wuu qabaa hebel iyo hebel way isqabaan oo la leeyahay ninkani waa odaygaygii baad oran kartaan saaxiibkay waxaa laga yaabaa inuu saaxiib kale leeyahay wallahu aclam laakiin waa odaygaygii marba haddaad tiraahid waad ku dagaalami kartaa maxkamad baad soo taagi kartaa meel walba laanno adaa iskale qofta dumarkaana sidaas oo kale aniga waa zawjadeedii in layga qaato ma jecli sidaas oo kale ay noqonaysaa marka falidalik tawfiiqda allah na waafajiye waxaa ku dadaashaan in aad haddii ilahay dhad jacaylba inaad ogaatid hadduu kugu dhaco walwal walbahaar iyo waxaas ku gelinaya una ku gelinayaa jacaylku wuxuu ku gelinayaa farax buu ku gelinayaa mar walba inaad faraxsan tahay qofka markaad aragto wuxuuna ku gelin doonaa hadhow tawal mustaqbal waana soo soconaa billahi tawfiiq waxaan insha allahu tacaala qaadan doonaana hadhow sideebaad ula macaamulanaysa markaan leeyahay ama maxaan ku dhahay ula dhaqmaysaa sidaad xaaskaaga ugu beeri lahayd jacaylka waxaanu qaadan doonaa sida aad ninkaaga aad ugu beeri lahayd odaygaaga ugu beeri jacaylka ayaa noo soo socon doona iminka maaha duruusta horta waxaan dhammaynaynaa intii maxaan ku idhahdaa imanayay haddaanad like yeelina like samee subscribe-na yeel allahna waafajiyo dhammaanteen ilaa aanu isku helayno darsigeena 6 wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu